رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيريه ayaa shir gudoomiyay shirka amniga caasimada galmudug ee Dhuusamareeb oo ay ka qayb galayeen dhammaan hay'adaha amniga heer federaal ee lagu wareejiyay amniga magaalada. Shirka ayaa aad looga hadlay qorshaha sugidda amniga caasimada galmudug ee Dhuusamareeb u diyaar garowga sugidda amniga shirka dibishsiinta galmudug amniga garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb iyo sidoo kale dardargelinta qorshaha xoreynta deegaanada ee al-shabaab uga sugan yihiin galmudug. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh amniga waxa uu faray inay si wada jir ah ay sare ugu qaadaan kalsoonida bulshada ayna u gutaan waajibkooda sida ugu habboon. dadka galmudug meel walba oo kamid ah waa isku soo baxeen waxay u soo jeesteen inay dawlad cusub dhistaan dawlad goboleed cusub waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dawlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxaa muuqda tanaasul badan oo la isu tanaasulayo tanaasulkaas isaga ah laakiin waxaa ka mira dhalin kara waa dadkiina ah hay'adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horeysa waxay tahay horta in amniga laga shaqeeyo amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyeen waana ku amaanan yihiin waana in laga bartaa laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aad uga badan ay imaan doona magaaladan xiisii loo qabay boqol jibaar maaya aragtida laga qabo si kale noqonaysa baahida loo qabana si kale noqonaysa waxaan u baahanahay marka sabuuradii looga soo shaqeeyay qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan Soomaaliyeed kulligiin mid labaad idinkoo hadda isu yimid marka aan fiirino shaqadan hortaal baaxadda ay leedahay waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina innakoo isu nimid oo ciidankeena mid uu noqday ayaa haddana baahida shaqo oo horteena taala baaxadda ay la eg tahay marka aan fiirino ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeeno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno haddii marka shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay shirkaana daliil ah tan labaad waxa ku guuleysateen ama dawladdii federaalka iyo dawlad maamulka galmudug ay ku guuleysteen in la midoobo la isu yimaado la wada shaqeeyo dadka loo adeego shirkan oo shir gudoomiye ra'iisul wasaaraha ee lagu qabtay Dhuusamareeb wuxuu ku soo beegmayaa xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya si buuxda gacantooda loogu wareejiyay sugidda ammaanka caasimada galmudug. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Dhuusamareeb.